inaad la macaamisho qof fikirka ka qaangaaray waa arrimaha loogu jecel yahay. Sidaasi oo kale raggu waxay aad u xiiseeyaan inay xiriir la samaystaan haweeneyda fikirka ka bislaatay. Waxa ayna la gaar tahay astaamo u gooni ah oo ay dumarka kale uga duwan tahay. Bislaanshaheeda dhanka fikirka kuma xirra xagga da'da. Haddaba sadaradan soo aadan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa astaamaha lagu garto in haweeneydu ay dhanka fikirka ka bislaatay ama ay tahay haweeney awood badan u leh nafteeda iyo nolosheeda inay daryeesho. Waa sida uu qoray website-ka Family Share. Waa qof mas'uul ah. Haweeneyda fikirka ka bislaatay waa qof mas'uuliyad qaadi karta oo geesi ah, awoodna u leh inay qaladaadkeeda qirato. Arrintani waxa ay kaga duwan tahay asaageeda kale ee aan weli caqliga ka bislaanin oo inta badan fashilkooda ku eedeeya dad kale. Way degan tahay oo ma fududa. In haweeneydu ay xasilloonideeda ilaashato waa calaamada muujinaya kartideeda iyo bislaanshaheeda dhanka fikirka, gaar ahaan xilliyada ay dhibaatadu jirto. Arrintaasi waxa ay u baahan tahay xirfad sare, maxaa yeelay isxakamaynta iyo sugnaanshaha waxa ay u baahan tahay dadaal dheeri ah iyo samir dheeraad ah. Waa qof waaqici ah oo aan khiyaali ku noolayn. Fikirkeeda iyo diiladeeda kuma xirna arrimo aan la gaari karin, laakiin inta badan waxa ay jeceshahay inay waaqici noqoto si ay howlaha u yaalla ugu gudato si nidaamsan. Haweeneyda fikir ahaan bislaatay wax walba oo nolosheeda ka mid ah waa mid weygeedii iyo waddadii loogu hagaagi lahaa la diyaariyey. Bilowga hore waxa ay ilaalinaysaa ballamaha dadka kale ay la gashay oo aanay marnaba ka baxaynin. Cabdulle Axmed Qorane.